عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قوها عدنان إسماعيل حرسي وكتر سن وحالي لها تي في تي وياركا وني رضا أوركا وحالي لها قبوي وحالي لها مانتا إن شاء الله برنامج كهذا إنه وحسابسية هاي وحالي لها قدوميها أوركا نروي عبد الرحمن عراد وأهنين هالجميع نين أمتي سواح بدن قرطي نين وحالي لها marka Yurub aad timaadid waa ninkii kaliya ee si fiican ku soo dhaweynaya ee umadiisa la xiriira Liibiya jooga ka Talyaaniga jooga oo waxa la yiraahdaa caawiya oo waxa la yiraahdaa markay hadda noqoto aqoonsiga xataa oo marka interview laga qaaday Yurub si sharci ah oo heshiid waa ninka kaliya oo caawinaya marka anigu ninka waxaan arkaa oo qalmo wasiir inta la siiyo uu istaahilaa maanta waxaan soo gaaray war inta gulmudug looga doortay inta noqdo waxa la yiraahdaa wasiir oo dad baas ku haysta marka anigu waxaan leeyahay ummadaas ku haysata Cabdiraxmaan Colaad wuxuu umadiisa u qabtay waa la ogyahay wuxuu annaka khaas ahaan dhalinyarta ururka GWL ka tirsan talooyinkuna siin jiray مواقف تبضان للاستاجي عبها ونجي على نشري سي أنا صوب حنو ومدة يده وحقوق ونو وانين أفر إيرا وعتنك صاعدات قضية جبويها وتاجن مركا ما أنت عني بو كسو شيء بيش مدبان وحالتنا يا بيش إذا مدبان يقول مدب دجن نك أنت دورتان سويت نوع محي وحام يوسف بيننا إن شاء الله فيديو بلنت oo isagu leeyahay oo in yar baan ka jarjaraynaa si aan u tusno ummadeena ninkaas wax qabadka uu qabtay marka ku soo dhawaada waxaan ka codsanayaa bal saaxadii laga saaray beelahan Soomaalida oo dhan rajo weyn ay qabtaa dawladda cusub ay ka qabtaa laakiin beelahan gabooyo way rajo dhigeenba laga bilaabo burburkii dawladda siyaad bare aad bay u rajo dhigeen waayo wili hadaan wasiir ku xigeen agaasimeeyay daweynu 20 iyo dhowr sano waa niyad jabsanaayeen marka mid walba oo dhalato waxay isleeyihiin waa tii hore kale kulli kursi ka helimaysaan ama maxay xaqina ka helimaysaan iska baa aamusa marka waxaan ka codsanayaa golaha baarlamaanka cusub afhayeenka baarlamaanka cusub ra'iisul wasaaraha cusub madaxweynaha cusub oo intaba gibigood qurbi jooga sida u badan yihiin in ay dadkaas hadda laga saaray oo niyadooda la jabiyay ay dib ugu soo celiyaan oo xuquuqdii ay lahaayeen ma oranayo sidii dawladda siyaad bareesho wasiiro hala siiyo iyo lix wasiiro laakiin waa inay ka muuqdaan golaha wasiirada waa inay ka muuqdaan golaha baarlamaanada way ka muuqdaan waa inay ka muuqdaan wasiir ku xigeenada waa inay ka muuqdaan agaasimayaasha dadka kama tacliin yara kama caqli yara kama hab yara hogaamiyaal ciidan way ku jiraan jeneraal way ku jiraan dad mutacalimiin way ku jiraan Prime Minister oo British ayaa hadlay wuxuu dadka galooyaha sheegay wuxuu leeyahay minority baan liiska markaa aqriyay inta minority ku qoran ayaa ka badan inta majority ku qoran marka waa noo wanaag sharaf ayay noo tahay ninkii shalay lahaa oo ninkan midkaanka oo ninkan tumaalka ونيجي نجيبك ونيجي نحرك ونيجي المسؤولية مرة أيربورت كسب تبتو إنا هذا نرجع بسوق قفكوا ورحيتي والله غير هذا غير قرش كاجو سيادة هشو أبتديني قبل كاساشة عايز في مركز سوالي جو ووحد يا أنا وفق حسن إن أنتِ ماشي خبيثة بقول كي بسيتك هذا هدي يودي آي لو أيهم قبيلة الله يسوع
ninkii gabooyaha nooc walba ha ahaado gabadha uu guursado waxaa hubaala in ay uur ku qaadayso xoolo xalaala isbaara ma dhigano qoryo ma qaadano qabiil kuma duulno ninkii ma dhibaanana halkaas wuxuu ka samaystaa meel hoosa uu kaba ku tolo lacagtii uu kabaha ku soo tolay uu ku dhiiriday ayuu xaaskiisa ka quudiyaan gabdhaha iyagana nasiib wanaag 15 jir ayay aan ka soo jeedo boqortooyadu waa ugu horeeyay Soomaaliya bucur bixir waa garanaysaan boqor burhaanow Soomaalida aan ka dhashay khaasatan dadka aan la degantaa oo ma dhibaanka ah meel walba inay ku dulman yihiin ay ku dhibaataysan yihiin marqaata ka taa boqor baa tahay waa ka warqabtaa nin walba oo isku sharxay madaxweynenimo ama golo wasiirnimo ama baarlamaan walba waa ula shiraa waa ula fariistaa wuxuu yiraahdaa warhaantiina waa idin buuxinayaa doorta markii la doortana ay doortaan ay ugu shubaana dhibaatooyinka iyo waxyaabaha ay kala kulmaan waa laga warqabaa hadda Puntland wax dhibaato aan ku sheeganayna ma jirtaba waa ku leenahay golaha wasiirada baarlamaan kuma lihin golo guurta kuma lihin waxaan ku leenahay ma jirto waxaa la yiraahdaa marka daawateen waxaa la yiraahdaa fiidiyoyada oo odaygaasi oo ma sha Allah ku dadaalayo ummadii soo qabtay beesha ma dhibaan anigu waxaan la talinayaa talo walaaltimo ah talabaad anigoo ah gudoomiyaha ururka jiwayaal oo ahna qayb kalena waan ka talinayaa qaybta ma dhibaan ahaan aan ka talinaya waxa weeyaan maanta markay jaalis inoo yimaado amba fursad inoo timaado ma aha intaan u helino ninkana in adeerkaya ninkana walaalkay ah ninkan baa maagtinahay waxa weeyaan intaan taageerno qofka wax inoo qabanaya qofka ay ka muuqato intuu ummadiisa oo meel u gaarsiinayo marka waxaan leeyahay beesha ma dhibaan doorta Cabdiraxmaan Colaad hadda wasiir dooranaysiin beesha gabooyina waxaan leeyahay adduunkani waxay nagu dhaafeen waa siyaasad marka waxaan ka codsanayaa iyagana yaana isku qabsan yaan la eegan waa qabiil fulaani meel kastaba adduunka ka joogtiin kana ma dhibaan kana tumaala kana hawla kana ninka u qalma ee ummadeena joogta qurba jooga aragtiin intuu active yahay oo ummadeena wax u qabanayo ninka doorta nin Soomaaliya gudaheeda jooga saraxatan wax u qaban kara ma jirto laakiin ninka qurba jooga ah maanta hadduu wasiir Soomaaliya xukuumadeeda uu ka helo waxa la yiraahdaa wax u qaban kara waayo dibadda haddii sirahan dibadda u tuur amba waxa la yiraahdaa baacso ma baacsan karaan waa nin yurubtan u imanaya uu ku caybaynaya xukuumadahan waa nin laga baqayo waa nin la iska ilaalinayo laakiin ninka Soomaaliya jooga bartolo waa ereya $1 buu qaadanaya markay muddo ay wadaana dibadda dhigayaan hadda tolana waxna muddo muu qaban laakiin ninkani qurba jooga waxa uu soo kornaya marka anigu waxaan ka codsanayaa ummadda gabooya caam ahaan markay dooranayaan wasiir amba ay dooranayaan waxa la yiraahdaa gudoomiye amba nin ururkan matalaya amba nin wax matalaya intuu haadan baasboor Yurub haysta والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.